Gudida Al-Ihsaan ee horumarinta waxbarashada diiniga iyo masaajidada ee deegaanada miyiga ayaa si toosa maanta xadhig uga jaray dhisme masjid loo magac bixiyey Subayr lagana yagleelay qabalayga Qalbooble hoostaga santarka Cafuufley kana tirsan degmada Xarshin ee dowlad deegaanka Soomaalida. Gudida Al-Ihsaan ayaa subaxnimadii soo gaadhay deegaanka Qalbooble ee masjidkan laga hirgeliyey, waxaana ay masjidka kormeereen isla markaana ay soo sawireen qaabka quruxda badan ee masjidkan loo yagleelay loona dhammaystiray dhammaan baahiyaha kala duwan. waxay sidoo kale ammaan iyo duca u soo jeedeen ugana mahadnaqeen xalqatu nuur oo ah xalqadda dhistay maalkeedana ku bixisay masjidkani. haddaba sheekh kamaal ayaa luqadda carabida ugu mahadnaqaya dadka muxsiniinta ee masjidkan soo yagleelay. القائل من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وها نحن اليوم في استفتاح مسجد زبير والذي صلينا فيه صلاة الجمعة بحمد الله. تم بناء مسجد زبير والذي ساهمت في بنائه المحسنة من أختنا من رياض، والذي يمثل إنجازا عظيما وترابطا اجتماعيا، ولا سيما فإن أهل الموقع كانوا بحاجة ماسة جدا. ونستطيع أن نقول إنه مشروع إيماني، وبارك الله في من سعى وبذل جهدا عظيما من المحسنات من المملكة العربية السعودية، وعلى من أنفق، وكلا وعد الله الحسنى. ومن هنا وبحمد الله سنقدم إليكم تقريرا موجزا عن المسجد. فالمسجد يتكون مساحة يستوعب أهل القرية كما ستشاهدون في المسجل، وأيضا دورات مياه مجهزة بشكل مميز، وتم الافتراش بفرش حديثة حيث يصلى عليها جماعة المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتها يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم اجعلها، قولوا آمين، اللهم اجعلها في ميزان حسناتها، اللهم اجعلها في ميزان حسناتها وتقبل عنها يا رب العالمين. والآن سنقدم إليك شكرا أختنا المحسنة من المملكة العربية من رياض المملكة العربية السعودية، حيث ساهمت في شراء الميكروفونيات وسماعات الداخلية والخارجية، وأيضا اللوحات الشمسية كما سترونها. فلقد رأيتم السماعات والميكروفونات سواء كانت سماعات داخلية وسماعات خارجية، وتم بحمد الله تركيب اللوحة الشمسية، حيث أن هذا المكان بعيد عن الكهرباء. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وجعل الجنة مثوانا ومثواك. ما أنت إلهي مهدي وحنو جوغنا فريتانك مسجد الزبير، مسجد كاس ولو أوغي صلاة جمعها إلهي سبحانه وتعالى مهدي. وحنو حلقا أنو غمهدنقينا ونوغ دعيننا عد والبؤو كقيب قاضتي لاسمها مساجد كاس، وخاصة حلقا وحن دعاء أمرين دونا ولا لهنا وحوي حلقة النور. وحن لنا هاي طبتم وطاب سعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ولا لها صرنتي كتب الرعي ما أنت جوجوشاس قيمها هي قايها بدن أينو كتو كني أينو سيدا قروح بدن وحوي جمعة ذين أوجني. وحن لنا هاي خير كأت كقيب قاضتين إلهي سبحانه وتعالى هيدين كجزاء السيو. وحن انتاس وحوي وقدرنا يوكل مساجدكو ما دام ويهي ماشى وحوي أجياش يجيل كلا قصو صاريو. مساجد كان وحو بهاي حلقة قرآن ووحوي أرضي ذير إداء ذير أنت بوين بقى قرآن كإلهي سبحانه وتعالى لو قل يقول لو حفظ السيو. حلقة داسنا وحنا كم أرمينين عد وحوي دكتاء ومعلنوه قامسة معلن كاسنا وحنو كم أرمينين وحوي تاغير ديس. وحن ذي كعد سنينا عدة مساجد كوحوي مسؤولية دي سايس إيه عدة وحوي معلن كعبة
inaad iyagana masaajidka aad la soo garab istaagtaan wixii taageero dhaqaale ah ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalaha ha barakeeyo ilaahay walaalaha ha barakeeyo masaajidka juhdiga ay geliyeen ilaahay jannada ha ugu abaalgudo ilaahay ha ugu abaalgudo inagana allah inaga yeelo kuwii ka faa'iideysta sidoo kale masjidkan ayaa salaadii jimce loogu oogay waxaana masjidkan soo buux dhaafiyo boqolaal ka mid ah dadka deegaankan kuwaasoo ammaan iyo duca u soo jeediyay qof kastoo muxsina oo maalkiisa ku bixiya koryeelka hadalka alle iyo weliba in dadka loo dhiso masjid aad u qiimo sareeya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Awalan waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. mar labaad waxaan u mahadnaqayaa walaalahayaga xalqatu nuur oo noo dhisay masaajidka ku yaala qalboobley centerka qabaleega qalboobley ee hoostaga centerka cafufley. walaalahay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka idinku daro jannana ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku bedelo. sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa sheekheena weyn sheekh maxamed oo xalqatu nuur ay usoo wakiisheen masaajidka in laga dhiso qalboobley isagana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro. walaalaheen runtii masaajidkii way dhammaystireen hadday noqoto gogoshiisa hadday noqoto solar systemkiisa iyo mikrofoonadiisii way dhammaystireen. walaalaha markaa wax ka codsanaynaa in ardaydu markii hore waxay wax ku dhigan jireen geed hoostii in hadda aanu doonayno in ardaydu ay kusii dhex dhigtaan masaajidka oo xalqadii masaajidka lagu sii dhex bilaabo ay naga kafaalo qaadaan nafaqadii macalinka ayaanu ka codsanaynaa. sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa walaalaha xalqatu nuur allaha barakeeye in madrasadii ay noo dhisaan oo halkaa marka dambe xalqada qur-aanka loo wareejiyo. aad iyo aad baynu walaalahaas u mahadsan yihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.